يريد إلى سماء سنو إلى أن يسوع صارنو أيام الدنيا مهمة تاوي أما هذا إلى كم من منه إلى كم من نقناء الغلاء إلى كم من نقناء الغلاء كم من منهم إلى كم من نقناء الغلاء مجتمع ما هذا تكونول أما تكونول أما هذا أحمد كونول إلى نكمل نقنو وكل السوق عنه وكل يعيد يستكشف إنه وهذا يضمر ينتهي يالب ساعة للدنيا والسلام عليكم واسيبه من وحريه هذا بالي وحريه ليش كمان وهم إلى مدة وصل كل هذا واسيبها وهم نبغى والسلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كاسوعة شيخ محمد شيخ حسن بويوها هدي عميد كدر صدق dadka bani aadanka ilaahay waa karaamay wuxuuna ku karaamay isfahanka hadda isfahan jirin nolol ma jirto sheekh maxamed hadda waa afka la qabto waxa la yiri aamus baa la yiri qofku inuu asagu hadlo oo dadnimadiisa ka hadlo waxa uu yahay muujiyo ceeb ma ahan asagoo aan qof taargad ka dhiganayn cidna la hadlayn cidna wax ka sheegayn ma ahan inuu qofku dadnimadiisa ka hadlo wuxuu yahay uu muujiyo marka dabcan hadalka aamus waxaan u fahmay dad baa macnaa taargad ka dhigata ma aha dadnimadiisa ayuu muujiyey mana ahan ceeb intaas haddaan taa uga gudbo waxaan u yeerayaa cabdirashiid xaaji meelow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يا قضيالك الله يرضى قبلها ليش ما عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. هذا كان بوشة. وبرك والنمي وأنا قبلي أنا هو أستاذ سلطان بنا أستاذ وأهم حفظ مهد عشان غير دردار أو أستاذ. دردار تسوء أنك هدانا هاي ليش محمد عبد الله أنا وحق في السنة أسفل من الله ما نقدبا مسبان غربين. كم تذكي هراي وحال أدا دردار مالير أدا يبيل كسو دردار مي وحال يبيلو قالوا أبو وش أنقم جبوير كل ما أقدر جبوير تسد حتى أفضل جيموي رجال وحال لي هاي ليش محمد عبد الله هذا يعرف واحد لين واد خديين واحد جرى للشيء أنا وحرمنا لما يرو يوقفوا يوقيل يوقيال جيت محمد عبد الله شركة ما نقبلنا ما نقدر على مسبار نقبل حتى نقدر على وحرمنا أنا واحد قبسنه ما كان عامو جنو بس ولكن اللي دنا هذا ما تشاركنا والسلطان كل شيء بيش الدرات أنا بيش الهوية أنا بيش سماع ولكن اللي دنا أنا أرد dadka anaga ogeyn dir anaga urud ah hasi ahaata hadda anaga u liidino maxaa keenay dad xumnimo waay qaadna si daro marka walaal waxaan rabaa gudubnaano waa aan qabsano kolkeen dalkeen diinteen dadkeen aan soo bixino ma la heli karaa billahi sallallahu alayhi wasallam cabdirashiid xaaji meelow ayuu ahaa haddana waxa uu yeerayaa qofta la yidhaahdo qadro cabdisalaan sheekh ayaa u yeerahaya taasoo noo soo xiri doonta waxyaala aad u jeclaysan doontaan aad ka maqli doontaan haddii ilaah yidhaahdo وسلامتي دمان باش نعذره باش اسوي مالتي باش نعذرك انت قولك كجرت كلمه وداد بلارن انت ugu dhadhawada laga soo qaatay marka xaramna inaan isbaraarujino maadaama aan beel midaysanahay oo dad isku imaaday oo muuqdo oo dunida kamid ah nahay duriyadii nacdo horka niman kan dadka uu jeclaa dibultaatiyo digto horayu badayiin dunida baaxada haas la raagduul meeray baa ku jira dayaxa iigsanayayo dowladaha hormaray oo diintiyo cilmiga niman daadiyaha ku jira daliilinaya xadiiska iyo aayadaha quraan
dayartana dohor kondibu labashadaaqoon haweenku difaha caragooday duulayaan haweenku difaha caragooday duulayaan inay daloolada qarshaan bayna doonayaan ilaahayow daa'im beesheena nabad ku daa ilaahayow daa'im dadaalay wada hanaago waysamdi oga dhicin oo isku duumidooda rabbiyo dadaal ku deeq bulshada reer nacdohorka beesha walaalahaa bulshada reer nacdohorka beesha walaalahaa barnaamij wanaagsan iyo baaqayga guddoon barnaamij wanaagsan iyo baaqayga guddoon bandhiga maanta iyo bulshadeenani isku timid waxay bayaan sheegeen inay beelmidaysan tahay waxay kaloo bayaan sheegeen inay isku baahan tahay birmadka bulshadooda aysan ka baaqanayn barbaartuu sheegtay inay wax badan qabteen bay daboolayaan odayaasheen mutaalaaday horboodayaan odayaadeenuna talaaday horboodayaan oo beesha diibadaha jirtaan baa ku jeedinaa war beeshu way baahan tahay oo barkoosukaan inaad soo baraharugaan baa la doonayaa dolaadmanoo bilaatay hadda baarlamaan la helay baluug low calanka booskiisibaa la suuray bulshada dhaqdhaqaaqsamaha inay sabiidiyamiini inilanka baaqan baha inaynu doonaynaa beesha dibadaha jirta inaysan ka baaqan dalka nabada ka jirta iyo beesha horumarkeeda rabnaa وبنابده دولبار وقبهجداي وبشوا به النبات وبرواقداي وضبنا حذايا ريقول صوبر قاضي ولالو فرسك يولو بدايه ولالو فرسك يوغل بدايه subaagaciirti banaanka taar burcadkaiya subaagaciirti banaanka taar burcadkaiya subaagaciirti banaanka taar oo beel barwaaqa weheya rabbiyo badbaadaye intaas waxaa ku eg barnaamijkii waxaan rabaa marka beesha reer nacdoon inaan usoo jeediyo maadaama ay leeyihiin oday habar gabar wiil intaba iyo maamooyin dhexe waxaan rabaa inay noqdaan dad midaysan oo gacmaha isqabsada haddii la awoodo oo waqtigu noo saamaxan isla meeshaan lagu dhawaaqo urur dhalinyaro oo beesha gacan qabta waa haddii aa awooda ay noqdaan dadkooda iyo wadamadooda wax u qabta beel kastood arkaysaa waxaa hormariya odagooda aqoon-yahanka iyo odagooda aqalka ah oo wadanka warar kusoo shaqeeyay marka waxaan rabnaa odayaashaana inaysan naga fariisane ee iyaguna hormariyaan ee wixii noo qaban lahaayeen iyo meelaha aan mari lahayn iyaga noo sheegaan annaga dhalinyaro ahaantiina aan samaysano urur aan ku horumarno oo aan ku qabsano wadankeena wax ugu qabanayo dadkeena iyo dadkana وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تسوع لقصوع عبد السلام الشيخ وعلى كلام جرا أنت صرت وعك خطبتي يوم الله مسهل أمرك قدر عبد السلام يسوي شيء هذا أنا وحمرنا كنت قبل يا مرينا
waxaan aniga hadda markii xiriiriyaha ayaa hal qodob ku darsanaya kaas wuxuu yahay horta wax walba waxay leeyihiin madax iyo meel ay ka duuleen kaas waxa kulankii noogu horeeyay ayuu ahaa midkaani oo ay beeshu iskugu timid kaasoo la isku baranayay la doonayay in isku mowqif la noqdo alxamdulillah rabbil caalamiin ilaahay baa ku mahadsan kaas heer weyn baa ka gaarnay maanta waxaan leenahay madax waxaan leenahay urur waxaan nahay dad jira xaqiiq ahaantii marka hadda qof walba fakarkiisu ka hadlayo anugu ma aaminsanayn intaan ama u dhigata oo maxamed cabdallah ayaa maanta koonfurta soomaaliya ku nool ma aaminsanayn laakiin ilaahay naxariis waayo waxaa kaloo ii soo raaca waxaa la yidhi ninbaa wuxuu dhalay baa la yidhi 6 nin oo sawirra iyo 6 nin oo fiican 6 sawirra fiicnayd ayaa caqliga laga waxay dabacay 6 kale inay dhacaan habartii baa maalin dambe u yeertay waxay tiri waryaale intay meelkooda geysay halkaas dhagax tuushay tiri maalin walba saddexdooda si saddex dhardhaar iska soo horjeeysa way ka soo tagtaa saddexda kale waxay yiraahdeen saddexda sawir waa tashanayaan wallahi ina caqli fadhino oo maalkaas inta loo yeeray wixii laga qaado loo keenay bas inuu nabad geliyo dadku waxa wax kasta ahaad hadduu isku yimaado waxay noqonayaan bini aadan jira oo bulshada ka dhex muuqda ayay noqonayaan isku waadkeen marka yaan loo fahmo si kale wax weyn ayuu qabanayaa iska dhaxwaaqkeenu faa'iideynaya isfaankeenu kordhinaya wax qabadkeenu kordhinaya sida daraadeed waxa ay wali wali halka meesha ka bilaabay ma aan gaarin wali biyo dhacaygi ma gaarin waxa kale ay waliya maanta maadaama hadda meeshaas ku yimid aan duub ku dooranay oo waxa way madax aan yeelanay aan isku baranay hadda kadib kulanka noo xiga waxa yeelanaa kulan dhalinyaro oo madax leh oo shaqeeya hadii ilaahay yiraahdo waxa kaloo soo raaca hadda dad badan oo shaqoon aan isku degaan ahayn ayaa maanta meeshaan isku yimid unbaa isku bartay ma ahan kulanka muhiimadiisu ama miradhalkiisu in intii lees arka lagu kala tago ma ahan waxaa leeyahay guddi shirku wuxuu leeyahay ama qabiilku wuxuu leeyahay guddi guddigaas ayuu nin walba la soo xiriirayaa meesha wax marayaan iyo sida wax u socdaan waxa kaloo ka soo haray annaguna waxa yeelanaa guddi dhalinyaro oo ka madax bannaan guddigan oo shirweynaha qabiilka guddiga dhalinyarada waqtigaas ka imaanayno hadda un baa ka wada hadlaynaa haddii ilaahayno waxa way xaajada ummadda furo markii tani dhammaato un baan waqtigiisa ka hadlaynaa haddana waxa uu yeerayaa dhanka gabdhaha qofta la yidhaahdo astur maxamed sheekh بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد بركور واحد سلام يا ابو يا حسني دور ما بيشن العذور عن محمد شيخ حسن جامع aniga waxaan sheegayaa horta kulanka waa gooree biyashan العذور ay shir u qabtaan marka waxaan doonaynaa inaan ka hadlo dhowr arrimood aan inta ugu horeysa waxa weeyaan waxaan doonaynaa biyashan العذور in aan sameeyno communication wax la yiraahdo inaan biyashan العذور ay sameystaan communication wax la yiraahdo kuwa dibadda iyo kuwa dalkaba oo aan barnaamijka amaanta sugu inaan hirgelino waxaan kaloo doonaynaa in waxaan kaloo doonaynaa